بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يلكسو دوادا وررك عالمك إيا صوماليدا وسغال إيا لباتنك بشكو يتوبانا سند لبادكون سغال إيا توبانك qodobada ugu waaweyn ee warka yaga aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweyne farmaajo oo gaaray Addis Ababa iyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aysan jeclaysan mucaaradka oo halkaasi ka bilowday maxaa ka jira in dawladda federaalka lacag guri iyo gaari aan xabada gelin ay isugu dartay Sheekh Somow iyo sheekha oo bulshada xaqiiqda u soo bandhigay Kenya iyo Imaaraadka oo wada qorshe halis ku ah qarannimada Soomaaliya khilaaf culus oo soo kala dhaxgalay gudoomiye Mursal iyo madaxtooyada Soomaaliya iyo wasiir Sabriye oo kulan lagu kala tagay la yeeshay hoggaanka ahlu sunna intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo maanta uu ka furmayo shir madaxeedka 13aad ee dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD madaxda dalalka IGAD ayaa ka arinsanaya qorshe cusub oo dib u habeen loogu sameynayo urur goboleedka IGAD kaas oo ku saleysan in ururka uu si siman uga turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay sidoo kale madaxdu waxay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya urur goboleedka IGAD ayaa waxaa haatan ka dhex taagan madmadow dhanka hoggaanka ah wuxuuna khilaafku ugu badan ka jira xogayaha ururka oo la tashi la'aan ku magacaabay gudoomiyaha ururka ahna ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti oo xubinka ururka ayaa doonaya in xilkan meerta uu noqdo si uu markooda ugu soo aado balse ma dhicin dawladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay shirkaasi la tagaysa soo jeedinta qorshayaal lagu taabagelin karo dib u habeynta IGAD si dalalka xubnaha ka ay si siman ugu faa'iideystaan lagana tago urur goboleedka ahmiyadiisa koowaad ay tahay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka gobolka ku yaala dhinaca kalena Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abubakar Soomo oo magaalada Muqdisho goofagaara kula hadlayay boqolaal culimada dariiqada suufiyada ee ahlu sunna wal jamaa ayaa sheegay inuu diiday in la kulanka madaxda dawladda intii uu dalka joogay Sheekh Maxamed Cabdi Umul Sheekh Soomo ayaa sheegay in hadda ay diyaar u yihiin inay la kulmaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka oo markii hore ay ku gacan saareen kulamo ay ka soo dalbadeen isagoo taasi sabab uga dhigay joogitaanka Sheekh Maxamed Cabdi Umul sidoo kale Sheekh Soomo ayaa waxa uu ballan qaaday culimada uu la hadlayay inuusan la dhuuman doonin haddii uu kulan dhexmaraya isaga iyo madaxda dawladda waxaana gooni ah uusan haatan ka rabin ahlu sunna kulligeen dawladdan taageersanahay oo aan rabnaa dawladda dadka taageersanaysan baabi'in waxaan ka soo horjeednaa in dalka lagu faafiyo عقيدة أن أهين أشعرية إما تريدية دولتنا وحن كعصانينا إن نقوق عن سيسا أيو يري الشيخ سومو هذا الكيس أيو انتها سيكو داري داد كان عقيدة دكو إلالية عقيدة دو صوبان أشعرية وزارة دا أوقاف تياري مهدين تلوما دي بكرو qof aan aaminsaneen nagama amar ee waa codsi waxaan kaloo ka codsanaynaa dawladda in xitaa wasaaradda waxbarashada oo manhajka dadka lagu qarxinayo uu ka imaan karo cid aan caqiidada ashcariya aaminsaneen inaan loo dhiibi karin geesi kalena dawladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay ku midoobeen abaabulka falalka dhanaan qarannimada iyo deganaanshaha amni ee Soomaaliya kuwaas oo ficiladooda sida la sheegay ay ka dhaqan galiyaan deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya siiba qaybo kamid ah gobolada maamul goboleedka Jubbaland xog aan ka helnay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gida ee dawladda dhexe ayaa xaqiijinaya in xerada ciidanka Kenya ee degmada Ceelwaq in lagu qaybinayo lacag fara badan oo la siinayo shakhsiyaad la sheegay inay daacad u yihiin dawladda Kenya isla markaana lagu soo ururiyay gudaha gobolka waqooyi bari ee Kenya kuwaas oo loo diyaarinaya inay deegaanka dhigtaan degmada Ceelwaq lacagtan ayaa la sheegay inay qaybinteeda ay iska kaashanayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo dhawaan ku sugnaa dalka Kenya iyo saraakiil Kenyaati ah kuwaas oo qayb ka ah abaabulka dagaalka beledkan cusub ee shisheeyuhu uu maalgelinayo sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen Axmed Bare Cabdilaahi oo ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gida ee dawladda taageersan dhinaca kalena ciidamada Kenya oo wada gaadiid dagaal iyo saanad culus ayaa soo gaaray deegaano ku xeeran xuduud beeneedka labada dawlad ay
wadaagaan kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq dhanka cirka ka bilaabay waqooyiga gobolka Gedo. Axmed Bare ayaana sheegay inay dadka shacabka ahi dareemayaan cabsi xooggan oo ku aadan xaaladda ciidan ee gobolka ku soo korortay. dowladda Kenya iyo Imaaraadka ayaa la sheegay inay xiriir dhow la leeyihiin hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa waxaa soo baxaya cabasho xooggan oo ka imaanaysa dadka gobolka Gedo oo dhibanayaal u noqday xadgudubka ka dhanka ah ee muddada dheer wehelka looga dhigay. dhinaca kalena khilaaf xoog leh ayaa hadda ka dhex jira hay-adaha fulinta iyo hay-adda sharci dejinta dalka kuwaas oo siyaasadda isku haya. qaar ka mid ah ilo lagu kalsoon yahay oo laga helay xarunta madaxtooyada ayaa noo xaqiijiyay in arrintan ka dambeysay kadib markii sharciga doorashada sida ay rabtay villa Soomaaliya ay noqon. fariin ka timid xafiiska madaxweyne Farmaajo oo loo diray afhayeenka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa laga dhadhansan karay heerka uu khilaafka gaaray. waxaa madaxtooyada ay doonaysay qorshe ay rabtay oo ah doorasho inay ka dhacdo balse farmasoonka looga booday. dadka qaar ayaa isweydiinaya hay-adaha dowladda iyo sida ay saameynta siyaasadeed isku hayaan taasoo curyaamin karta shaqada ay dalka iyo weliba dalka ay u hayaan. geesa kalena sida ay inoo sheegeen ilo lagu kalsoon yahay kulan lagu kala tegay ayaa waxa uu dhex maray saacado ka hor wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Sabriye iyo hogaanka Ahlusunna ee gobolada dhexe. kulankaas oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegay in looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Galmudug. hogaanka Ahlusunna ayaa qodobo badan hordhigay oo ay u arkayeen inay dowladda uga baxday culimada Ahlusunna balantii ay wada galeen. waxaa kulanka uu socday 3 saacadood kaas oo ka dhacay xarunta Inji oo uu ku shaqeeyo Sheekh Maxamed Shaakir Sheekh Cali Xasan. kulanka ka hor ayay Ahlusunna ku dhawaaqeen inay ka soo horjeedaan hanaanka dowladda u martay doorashada Galmudug xilli aysan weli saluug Ahlusunna xalin. shirkaas ayaa la sheegay in lagu kala tegay markii isfaham waa qodobada la isku qabtay iyadoo kulan kalena loo balamay. dhinaca kalena madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo maalmahanba safar shaqo ku joogay magaalada Dubai ee wadanka Imaaraadka Carabta ayaa halkaasi kula kulmay mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta u qaabilsan tababarka iyo taakulaynta ciidanka Puntland ee BMBF. madaxweynaha ayaa la xaqiijiyay inuu mas'uuliyiinta Imaaraadka ku qanciyay inay sii wadaan qandaraaska shirkadda BDG oo dowladda Imaaraadka ay adeega iyo saadka u soo marin jirtay ciidanka badda Puntland ee BMBF. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa bishii June ee sanadkan hakisay logistikadii ay ciidanka BMBF u soo marin jirtay shirkadaasi BDG kadib markii uu khilaaf baan soo kala dhexgalay saamileydii ku mideysnaa BDG isla markaana uu qalqal ku yimid howlihii shirkadaasi. sidoo kale saraakiisha Imaaraadka ayaa waqtigaasi ku hanjabay inay gebi ahaanba qandaraaska kala laaban doonaan shirkadda BDG kadib markii la xalin waayay khilaafka u dhaxeeya saamileyda ku mideysan shirkadda. balse madaxweynaha Puntland ayaa sida la sheegay mas'uuliyiinta Imaaraadka u xaqiijiyay in xal rasmi ah laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay saamileyda BDG isagoo ku qanciyay inay sii wadaan qandaraaska BDG ee taakulaynta ciidanka. wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweynuhu safarkiisa soo gabagabeeyay isagoo la filayay inuu maalinta Sabtida ee soo socota dib ugu soo laaban doono magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka baaqsaday xilka qaadis uu la damacsanaa inuu ku sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu qalad badan uu galay gudoomiye Cumar Filish muddada kooban ee xafiiska uu joogo wuxuuna ka soo bixi waayay hawshii loo idmaday. qaar ka mid ah waxgaradka beesha Mudulood ayaa madaxweyne Farmaajo ku qanciyay inuu xafiiska sii joogo duqa magaalada isla markaana la siiyo waqti ku filan oo uu kaga soo bixi karo hawsha loo wakiishay. ugaas Maxamed Cali ugaas oo kamid ah beesha Mudulood ayaa ku baxay arintan madaxweyne Farmaajo kalena hadlay in gobolka uu kaga maqan yahay dhiig isla markaana aysan aqbalin in xilka qaadis muddadeeda la gaarin lagu sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa muddo yar ee xafiiska uu joogo waxaa soo maray caqabado badan isagoona khilaaf uu dhexmaray xubno muhiim oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo toos ugu xiran madaxtooyada Soomaaliya. sidoo kale duqa Muqdisho ayaa wajahaya culeysyo kaga imaanaya xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ku aadan dhanka awoodda iyo dhaqaalaha ka soo xarooda gobolka Banaadir. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka aynu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.